بسم الله الرحمن الرحيم warka madaxdiisii gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Jiile ayaa ka warbixiyay shaqaaqa ka dhacday dowladka dhinaca waqooyi ee magaalada Laascaanood shaqaaqadaasi oo salka ku haysay arrimo xagga dhulka la xiriira boqorkii dadka Suluga ee waddanka Koonfur Afrika ayaa ku dhintay isbitaal ku yaala waddankaasi waxaanu boqorku dhintay iyada oo da'diisu ay tahay 72 sano sida ay mas'uuliyiinta caafimaadka ee waddankaasi xaqiijiyeen dalka Nigeria ayaa mar kale laga aftuubtay arday ka baranayay mid ka mid ah goobaha waxbarashada ee waddankaasi cilmiga beeraha iyada oo ardaydan la aftuubtay habeennimadii xalay ee Jimcuhu soo galayay sida ay mas'uuliyiinta ammaanka ee Nigeria ay xaqiijiyeen dowladda waddanka Ingiriiska ayaa ugu baaqday dadka dalkeeda u dhashay ee ku sugan waddanka Myanmar in ay ka baxaan waddankaasi oo ay waqtigan ka socdaan mudaharaadyo dad badan lagu dilay warkii oo fidsan gudoomiyaha gobolka Sool ee Soomaaliland Cabdiqani Maxamuud Jiile ayaa ka warbixiyay shaqaaqo ka dhacday dowladka dhinaca waqooyi ee magaalada Laascaanood shaqaaqadaasi oo salka ku haysay arrimo la xiriira xagga dhulka gudoomiyaha gobolka Sool ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dhimasho hal qof iyo dhaawac laba qof oo kale taasi ku dhintay kuna dhaawacmay isagoo cadeeyay inay goobtaasi la wareegeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliland ee magaalada Laascaanood waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sool uu sheegay in ciidamada booliska ee Soomaaliland ay magaalada Laascaanood ay gacanta ku soo dhigeen kooxihii shaqaaqadaasi duuleedka ka dhacday ee xagga dhulka ka dhalatay ka dambeeyay kuwaasi oo 5 nin ka koobnaa isla markaasina ay gacanta dawladda ku jiraan gudoomiyaha gobolka Sool ayaa waxa intaas uu ku daray in ay dawlad ahaan joojiyeen arrimaha dhulka muddo 3 bilood ah maadaama dalku uu doorasho galayo waxa uu sidoo kale uu fariin u diray dadka reer Laascaanood iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay ruuxa shaqaaqadaasi ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmeeba isagoo u soo jeediyay in ay xaaladda dejiyaan isla markaasina raggii shaqaaqadaasi ka dambeeyay ay gacanta ku hayaan dhammaantood wixii dambana dawladda loola socodsiiyo maadaama xafiisyada dawladdu ay furan yihiin ciidamada booliska ee gobolka Sool ayuu barasaabku uga mahad celiyay sidii ay uga howlgaleen shaqaaqadan arrimaha dhulka ku saabsaneed ee ka dhacday duleedka magaalada Laascaanood tababar iska kaashanayeen dalada isku xidhka haweenka Soomaaliland ee Nagaad iyo hay'adda Interpeace oo ay ka qayb qaadanayeen haweenka kala duwan ee ku nool magaalada Sheekh Abdaal ee gobolka Saaxil ayaa lagu qabtay halkaasi tababarkan ayaa ku saabsanaa sidii ay haweenku isku taageeri lahaayeen doorashada fooda inagu soo haysa ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada oo la filayo inay Soomaaliland ka dhacdo 13 bisha May ee inagu soo aadan waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay Marwo Khadra Nuux Ismaaciil oo ka socotay dalada isku xidhka haweenka Soomaaliland ee Nagaad iyo sidoo kale Kaltuun Yuusuf waxaana ay ka warameen tababarkan iyo ahmiyadda uu u lahaa haweenka ku nool magaalada Sheekh Abdaal iyagoo tilmaamay inay tababarkan ay ka faa'iideysteen 60 haween oo ka mid ah haweenka deegaankaasi waxaa sidoo kale ay tilmaameen Khadra Nuux iyo Kaltuun Yuusuf in intii tababarkaasi socday la isku weydiiyay su'aalo ku saabsan sidii dumarku ay ugu yeelan lahaayeen golayaasha dalka haween matala haweenka kale iyo sidii ay wax ugu qaban lahaayeen xilliga doorashooyinka xubno ka mid ah haweenka tababarkan ka qayb qaadanayay oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ballan qaaday inay haweenka sharaxan ee 3 xisbi qaran ka sharaxan u codayn doonaan isla markaasina dhaxda u xulan doonaan sidii ay hiil iyo hooba ula garab istaagi lahaayeen munaasabad lagu shaacinayay musharaxnimada Axmed Naasir Xuseen Cigaal oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya doorashada golaha deegaanka kana tartamaya xisbiga kulmiye ayaa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Sheekh
musharaxan oo ka tartamaya degmada sheekh ee gobolka saaxil ayay munaasabadiisa ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye salaadiin cuqaal dhallinyaro haween iyo marti sharaf kale oo tiro badan waxaa ugu horreyn halkaasi ka hadlay salaadiintii iyo cuqaashii iyo qaybihii kala duwanaa ee martida ka mid ahaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay iyaga oo tilmaamay in musharaxa munaasabadaasi lagu shaacinayay musharaxnimadiisa loo baahan yahay in cudud iyo codba laysla garab taago lana doorto maadaama oo loo baahan yahay xildhibaano da'yaryar oo degmada horumarkeeda kor u qaada waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga talada hayse ee kulmiye waxaana ay tilmaameen inay qaateen musharaxan waxaana ay intaasi ay ku dareen in uu hore ula soo shaqeeyey musharaxani oo uu waxyaabo badan ka qabtay degmada sheekh iyo deegaanada hoos yimaada gebagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay musharax axmed naasir xuseen cigaal waxaana uu ka codsaday dadweynaha degmada sheekh in ay codkooda siiyaan islamarkaasina ay garab istaagaan isagoo dhinaciisa ka ballan qaaday in uu wax badan ka qaban doono baahayaha ka jira degmada sheekh boqorkii dadka suuluuga ee waddanka koonfur afrika ayaa ku dhintay cisbitaal ku yaala waddankaasi waxaana uu boqorku dhintay iyadoo da'diisu ay tahay 27 sano sida ay mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi ay xaqiijiyeen boqor gurwel oo muddo dheer soo xukumayay dadka suuluuga ah ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey xaalado caafimaad u yaalay cisbitaal ku yaala magaalada johannesburg waddanka koonfur afrika iyadoo laga daweynayay xanuunka macaanka oo ku dhacay mangosuusu butulesi oo ah amiir kale dhaxalka boqortooyada suuluuga islamarkaasina ah siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta waddanka koonfur afrika ayaa shaaciyey geerida boqor gurwele waxaana uu sheegay in aas qaran loogu samayn doono deegaanka ay degan yihiin dadka suuluuguhu aaskaasi oo ay ka soo qayb geli doonaan 1 milyan oo qof oo suuluu ah iyo dad kale oo marti ah boqorka geeriyooday ee muddada dheer soo maamulayay dadka suuluuga ayaa ku dhashay magaalada lagu magacaabo nongoma oo ah magaalo yar oo ku taalla koonfur bari gobolka kaawasuulu nataal waxaanuu boqortooyada dadka suuluuga ah xilkeeda qabtay sannadkii 1971 iyada oo ay wakhtigaasi da'diisu ahayd 23 sano taasi oo ku beegneed 3 sano ka bacdi geeridii aabbihii warkaasi halkaad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda qaranka jamhuuriyadda somalilan ee redio hargeysa dalka nigeria ayaa mar kale laga aftuubtay arday wax ka baranayay mid ka mida goobaha waxbarashada ee waddankaasi ku taalla iyadoo ardaydan la aftuubtay habeennimadii xalay ee jimcuhu soo gelayay sida ay mas-uuliyiinta ammaanka ee nigeria ay xaqiijiyeen ardaydan la aftuubtay ayaa tiradoodu dhammeed 30 arday oo laga aftuubay college lagu magacaabo federal college of forestry kaasi oo ku yaala dowlad deegaanka kaduna ee gobolka afaaka mid ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska ee magaalada kadunga ayaa warbaahinta u sheegay in ilaa hadda lala yahay 30 arday oo isugu jira hablo iyo wiilale waxaa iyaguna sidoo kale la aftuubay dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha kulliyadaasi gobolka kaduna ayaa waxaa inta badan ka dhaca howlgallo hubaysan oo caan ku ah dadka fulinaya inay isticmaalaan mootooyinka kuwaasi oo dhowr jeer oo hore u aftuubtay hablo tiro badan kooxahan ayaa hore waxa ay u fuliyeen aftuubka hablo gaar ahaana hablaha dhigta dugsiyada sare ee da'doodu ay yaryar tahay laakiin dhacdadan aftuubkan cusub ayaa waxay tahay mid ku cusub waddankaasi maadaama wiilal iyo shaqaale kale ay ku jiraan kuliyaddan ayaa lagu bartaa arrimaha beeraha waxaana ku ag yaalla kuliyad kale oo iyadana lagu barto cilmiga ciidamada milatariga oo ay leeyihiin ciidamada milatariga ee waddankaasi nigeria dowladda ingiriiska ayaa ugu baaqday dadka dalkeeda u dhashay ee ku sugan waddanka mayanmar inay ka baxaan waddankaasi oo ay wakhtigan ka socdaan mudaharaadyo dad badan lagu dilay xafiiska arrimaha dibadda ee waddanka ingiriiska oo warbixin soo saaray ayaa waxaa u soo jeediyey muwaadiniinta u dhalatay waddankeeda ee ku nool maynamar inay si dhaqsaa uga baxaan iyada oo sidoo kalena warbixinta lagu sheegay in xaaladda qalalaase ee waddankaasi ka taagani ay ka dhigtay dalkaasi mid aan degganayn dibadbaxyada laga soo horjeedo saraakiisha milatariga ee dalka maynamar oo horaantii bishii februari ee sanadkan awood ciidan xukunkii kaga tuuray xukuumaddii rayidka ahayd ee ay hogaaminaysay haweeneyda lagu magacaabo ansa suushi ayaa waddankaasi ku baahay toddobaadyadii ugu dambeeyey dibadbaxyadii ugu dambeeyey oo maanta qaybo badan oo waddankaasi ka mida ka dhacay ayaa ay ku dhinteen dad gaadhaya 12 qof oo rayida
kuwaasi oo ciidamada Myanmar ay toogteen. dhinaca kalena mudaharaadyada dalkaasi ka socda ayaa maalintii khamiistii waxaa ku dhintay 8 qof kuwaasoo ciidamadu ay ku dileen magaalada lagu magacaabo Miyaan oo ka tirsan gobolka Magway, halka dad kale oo aan tiradooda rasmiga lahaynina ay ku dhinteen magaalooyinka Yangon, Mandalay iyo Bacho oo ka tirsan gobolka Tango. 6 waddan oo caraba ayaa sheegay in uu haleelay nooc cusub oo ah cudurka coronavirus kaasi oo ku faafaya waddamadooda. dalalka Urdun, Yemen, Ciraaq, Libiya, Tunisiya iyo Imaaraadka ayaa sheegay inuu farabaas ku hayo nooc cusub oo ka mid ah xanuunka coronavirus. wasiirka caafimaadka ee Urdun ayaa sheegay in noocan cusub ee corona uu soo ritay dad gaaraya 8,300 oo qof, waxaana ay tirada guud ee cudurku soo ritay ay ka dhigaysaa 451,150 qof, halka ilaa iyo hadda ay u dhinteen 5,169 qof. waddanka Yemen ayaa sidoo kale sheegay in guddiga heer qaran ee la dagaalanka xanuunka corona ay xaqiijiyeen in dalkaasi laga helay 40 qof oo cusub, waxaana tirada guud ka dhigaysaa taasi 2,669. dalka Ciraaq ayaa dhinaciisa sheegay inay dhinteen 26 qof 24kii saacadood ee la soo dhaafay, halka Liibiyana ay ugu dhinteen 10 qof noocan cusub ee cudurka coronavirus. wasiirka caafimaadka ee Liibiya ayaa isaguna sheegay inay hadda Imaaraadka Carabta ayaa dhinacooda ka sheegay inay 16 u dhinteen fayraskan cusub intii ay diiwaangeliyeen. 2 qof ayaa dhintay 27 kalena way dhaawacmeen kadib markii gaari bas ah oo dad rakaab ihi saarnaayeen uu kala dhacay meel waddo ah waddanka Hindiya, sida ay caddeeyeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee waddanka Hindiya. baskan oo ka tegay deegaanka lagu magacaabo Bohobal kuna socday deegaanka kale ee la yidhaahdo Chindawara ee gobolka Madhya Pradesh ayaa uu waddada kala baxay darawalkii waday gaadhigu kadib markii maamulkii gaadhigu farihiisa uu ka baxay. dadka dhaawacmay oo tiradoodu ay gaadhayso 27 qof ayaa la geeyey cusbitaalada iyada oo mid ka midana xaaladiisu culus tahay. dhinaca kalena shil kale oo gaadhi oo isla Hindiya ka dhacay gobolka Uttar Pradesh oo ku yaala waqooyiga bari ee waddanka Hindiya ayaa waxaa ku dhintay 5 qof halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii 2 gaari oo basasihi ay isku dhaceen. labadan bas ee isku dhacay ayaa mid ka mid ah ay taayiradu u qarxeen sida lagu sheegay war laga sii daayay telefishinka NDTV ee dalka Hindiya, taasi oo sababtay in uu baskaasi kale oo dhinac marayay uu ku dhaco. warkii oo aad ka dhegaysanayseen Radio Hargeysa codka Jamhuuriyadda Somaliland waa